ganacsato Soomaali ah oo duleedka magaalada Muqdisho ka hirgeliyay warshad weyn oo shiida galeyda ayaa sheegay in hadafkoodu uu yahay sidii ay beeralayda gudaha u dhiirigelin lahaayeen sidoo kalena loo heli lahaa kayd dib loogu laabto marka ay dhacaan dhibaatooyinka abaaraha iyo daadadku ay dhaliyaan samaynta warshadan ayaa sidoo kale fursad shaqo waxa ay siinaysaa tiro badan oo dhalinyaro ah warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaheena Zainab Abuukar warshadan oo lagu magacaabo Sam Green oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho waxa ay ka mid tahay warshadaha ku soo biiray dalka waana warshad shiida galeyda isla markaana soo saarta iyada oo bacaysan kana kooban qaybo kala duwan dibna suuqyada magaalada Muqdisho ugu daabusha taasoo sahasha in dadka ay si fudud ku heli karaan galeyda oo shiidan iyagoo u isticmaalaya noocyada kala duwan raashinka ay ka samaysan karaan warshadan waxa nagu dhiirigeliyay inaan sameeyno baahida ka jirtay wadankeena Soomaaliya stable foodka ama quuto daruuriga ay ummaddu cunto wuxuu ahaan jiray galeyda iyo masagada iyo digirta waxaan aragnay dadkii inay maaragtay ka manguureen oo baasto iyo bariis ay u bedelmeen si loogu soo celiyo dadka dhaqankoodii ayaan nagu dhalisay baahida ka jirta maaragtay isticmaalkii oo aan diyaarsanayn galeydii aan saareen shelfka sida baasto bariisku u saaran yihiin iyo in lagu dhiirigeliyo wax soo saarka beeralayda si beeruhu ay u helaan dalagooda marka uu soo baxo meel cid ka gadata oo uu ku baxo ayaa nagu dhiirigelisay arrinkaas ayaana keentay in la asaaso shirkaddan oo ay fikirkeeda lahayn ganacsato isu tagtay galeyda ee shiida warshadan ayaa ah dalaga ka soo go'a beeraha ku yaala gobolada dalka iyada oo ka hor inta aan la shiidin marka ay ka soo gudubta kaydka marta marxalado kala duwan oo lagu hubinayo tayadeeda waa in la soo hubiyaa galeyda marka inta la soo ogaado kadib waxa loo gudbinaa marka nadiifinta marka ay soo gudubto nadiifinta processkeeda waxa ka dhacayo qashinka laga saaraa dhagxanta laga saaraa intaas marka laga saaro kadib waxa lagu daraa biyaha marka lagu daro kadib waxa lagu shubaa marka haamayn yar oo ku dhaxeeya warshada ay leedahay lagu kaydiyaa ilaa dhowr saacadood ama 2 saac yani marba iyadoo loo fiirinayo galeyda noocay tahay intaas kadib waxay soo gudbaysaa dhambalid waa dhambalaa warshada dhambalaysa mashiina dhambalaayo kadib waxay u gudbaysaa marka shiidka u gudbaysaa waxyaabaha ay soo saarto warshada ayaa loo iibgeeyaa Muqdisho iyo gobolada ku dhowdhow Xaaji Muuse Cali Basar ayaan weydiiyay maalintii inta ay soo saarto warshada iyo guud ahaan tirada shaqaalaha ka shaqeeya maalintii waxaan soo saarnaa hadba baahida suuqa jirta hadda soo saarnaa laakiin capacity-geena maalintii 90 tan waay 90 tan ayaan soo saari karnaa haddii ay full capacity shaqeyso oo isugu jira canjeero iyo soor shaqaalaha halkan ka shaqeeya inta joogtada ah waa ilaa 15 shaqaale ah oo injineero ay ku jiraan maaragtay electrical engineer iyo production engineer oo milling engineer ah dadka qaar ayaa shaqo abuur ka dhigtay warshadan sida Xuseen Cali Cumar productiga ay warshada soo saarto oo maize flour-ka ayaan packing gareena waxaan u 3 qaybood 5 kg oo 5 kg ah iyo 2 kg iyo 1 kg waxaan la shaqeynayaa shirkadan muddo ah 1 year shaqaalaha Soomaalida marka laga soo tago waxa halkan ka shaqeeya dad ajnabi ah sida Miller Nazuwaga Alice oo u dhashay wadanka Uganda ahna madaxa warshada qaybta galeyda shiida Now I felt as a person very touched waxaan dareemay qof ahaan oo itaabatay inaan halkan khibradeyda keeno oo aan qayb ka noqdo kooxda dib u dhisaysa Soomaaliya si ay ugu noqoto waayaheedii fiicnaa si kastoo ay tahay warshadan waxaa looga maarmay makiinadihii yaryaraa oo dadka ay dhibaatada ku qabeen taas oo marka ay badarka shiidanayaan ay feel u geli jireen taas oo la soo isticmaali jiray tan iyo barasimaadkii muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa Muqdisho iyo duleedkeeda waxaa ku soo kordhay warshado badan oo wax soo saar leh kuwaas oo ay dalka keeneen dad qurba joog ah ee ganacsato gudaha dalka ku sugan Zainab Abuukar Maxamed qubanaha VOA Muqdisho